من دولة إثيوبيا الدرس كأن هاي أنا إسكعلي جرني ولجين كفع وأنا اليقان ما أنت إسكعل ضد كيان هاي ضد كيان اسمنا نبدلن كاسوح وها مدحينها دولة فدرالك الصومالية حسن الشيخ محمود oo maantay hadaladii iyo weerarkii ugu culus oo dhinaca afka ku qaaday Ethiopia kuna tilmaamay cadow koobaad oo ay Soomaaliya leedahay wuxuuna ku baaqay in dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba una diyaar garoobaan difaaca dalkooda laakiin waxa la dila wadaagi doonaa marka laga yimaado in madaxweynaha Soomaaliya uu si cad goor walba u sheegayo in ay dalka Soomaaliya Ethiopia ku soo duushay isla mar ahaantaana oo ku baaqay difaac iyo duulaan Ethiopia ka dhana hadana ciidamada Ethiopian ayaa jooga Soomaaliya diyaaradda Ethiopia Airlines ba ka shaqeysa sid lamida safaaradda Ethiopia ka furan arrimahaas oo dhan waa dhaawac waxay ku tahay khudbadda madaxweynaha iyo war walba oo dawladda Soomaaliya ka yimaada oo arrimaha Ethiopia ku saabsan Xasan Sheekh Maxamuudna marka Siyaad Barre laga yimaado wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Siyaad Barre kadib hadallo noocan oo kale Ethiopia hawada u mariyo oo ah inay cadow tahay inaysan walaal la ahayn dariskeedu inuu been yahay inay duulaan ku tahay Soomaaliya ina iyadu dhul ka haysa ma ahane oo dhul iyo dad Soomaaliyeed haysa mooyee in aysan Soomaaliya aysan dhul iyo bad ka soo jirin cidi duuli lahayn ay Soomaaliya tahay aysan ahayn Ethiopia cidi duulaan soo qaadi lahayd waxyaabaha kale aan la wadaagi doono waxa kamida maxaad ka xasuusataa safarkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu Jigjiga ku tagay kal hore oo dhaawici kara khudbadihiisa xilligaas oo uu Jigjiga ka sheegay in uu yahay Jigjiga ay tahay Ethiopia madaxweynaha Soomaaliya sidaad la wada socotaan tan iyo markii uu heshiiskaas u dhacay waxaan filayaa in uu 3 ilaa 4 goor uu ka hadlay maanta ay noqonayso markiisi afaraadi uu ka hadlayo arintaas iyo mowqifkiisa ku aadan si lamida sidaan ayuu jamcadii horena uga hadlay isla masaajidka madaxtooyada kulamo kale oo ka qayb galay ayuu weerar noocan oo kale ku qaaday Ethiopia maantana wuxuu qaaday weerar kale oo dhinaca afka oo Ethiopia ku qaaday waxaana lagu tilmaamay ereyadu adeegsaday kuwa ugu adkaa uu adeegsaday tan iyo intuu arrimahan ka hadlayay haddaba maanta madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arintaas sida ay uga go'an tahay dawladda Soomaaliya in aysan marnaba aqbalayn in Ethiopia ay qaadato dhul iyo bad Soomaaliyeed wuxuu ku baaqay adduunkan ugu baaqay Soomaalidan ugu baaqay in marxaati laga noqdo waxa Ethiopia sameynayso oo ku sheegay inay tahay duulaan dal iyo dad Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya kelmadaha ugu badan oo adeegsanahay waxa kamid ahaa cadow waa ka adkaanaynaa waa ka adkaan jirnay waa la dagaalami jirnay wayna yaqaanaan gabamayno cududdan is haysanaa Soomaali loogama guuleysto anigu gorgortan ka geli maayo kelmado noocaas oo aad u fara badan ayuu adeegsaday intii uu hadlayay ama khudbadiisaasi dhowr iyo 10 daqiiqo socotay haddaan idin dulmarano xorkiisana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maanta khudbadii jamcaha uu ka jeediyay masjidka madaxtooyada ayuu ku dhawaaqay in Ethiopia ay iska dhicinayaan kadib xadgudubkii ay ku qaaday badda Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in Ethiopia ay tahay cadowga ugu weyn ee Soomaaliya isla markaana ay ka difaacanayaan dalka haddii ay isku daydo meel marinta xadgudubkii ay xukuumadda Abiy Ahmed ku kacday kulana saxiixatay Soomaaliland heshiiskii beenaadkii buu yiri dhinaca badda maanta haddii dhul la isku sheeganayo biiri annaga ayay tahay inaan Ethiopia maanta dhul ku sheegano nooguma sheegan karto annaga dhul buu yiri cadow hal ayuu ahaa biiri oo waa al-shabaab laakiin maanta waa labo oo waa iska celinaynaa biiri al-shabaabka oo duulaanka soo qaaday sidoo kalena waxaan iska dhicinaynaa biiri cadowgan kale oo Ethiopia ku tilmaamay wuxuu sheegay in Ethiopia iyo al-shabaab ay isku si ula dagaalami doonaan dawladdiisana ay ka go'an tahay dadka Soomaaliyeedna uu ugu baaqay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in Ethiopia ay soo rogtay bog taariikheed oo ay Soomaaliya dhowr iyo 30 sano ka hor laabtay oo la jeedo dagaalkii 77 Ethiopia Soomaaliya iyo waqtiyadii ka dambeeyay ee dawladda militariga dagaalkeedii xilligu socday iyo xilligaas dawladii ay duntay wuxuu sheegay in balaaya gees la qabta ay leedahay laakiinse loona baahan yahay in Ethiopia haatan geeska la qabto si aysan u hardin dawladnimada iyo midnimada Soomaaliya ama go'aankeedu uusan ugu hirgelin sidoo kale waxa uu si cad u sheegay in dhulka Soomaaliyeed aysan baxayn qayb kamida inta uu nool yahay qof Soomaaliyo
ku nool yahayna caalamka inaan dhul Soomaaliyeed la qaadan karin madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay u midoobaan iska dhicinta Itoobiya iyo ka hortagga xadgudubka xilli uu dalka ka socdo guluf kale oo ka dhana kooxda Al-Shabaab waa hadalkiisii ugu kululaa iyo digniintiisii ugu dambeysay ee madaxweynuhu uu jeediyay tan iyo markii uu soo baxay heshiiska Addis Ababa ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay ku kala saxiixdeen heshiiska dhinaca badda ah dhinaca kale wasiir dowlaha amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay telefishinka qaranka ee Soomaaliya ayaa waxa uu xaqiijiyay in dawladdu ay wada abaabul ciidan oo ka dhana Itoobiya haddii ay isku daydo meel marinta damaca guracan oo ay ku jirto u diyaar garowga iyo ka difaacista xuduudaheeda heshiiskii ee badda ee Itoobiya loogu saxay markaas 20 kilomitir ayaa si weyn looga soo horjeestay maadaama uu yahay mid masiiri ah oo xadgudub ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale horay u soo saartay qaraar ay ugu hortimid heshiiskaasi iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxiixay sharciga baarlamaanka uu meel mariyay oo afgaradkii Itoobiya iyo Soomaaliland ka soo horjeeda khudbadda Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta masaajidka madaxtooyada uu ka jeediyay inteeda badan bilow ilaa dhamaad wuxuu ka hadlayay Itoobiya wuxuu sheegay in Itoobiya cadow ay tahay wuxuu sheegay in Itoobiya aan laga yeelin wax ay doonayso wuxuu dadka Soomaaliyeed u sheegay in Itoobiyaanka aysan saaxiib iyo daris iyo walaal aysan ahayn ee ay tahay cadow waa hadallo uu madaxweyne Soomaaliyeed adeegsaday siyaad barra kadib ku ugu kulula oo Itoobiya ku socda waxaana u muuqataa xaaladdu inay meel adag marayso oo labada dal xiriirkoodu uu digada noqday laakiin waxaan idin la wadaagayaa waxyaabo kale oo hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markaasi hoos u dhigaya iyo maqaamkiisa iyo hadalkiisa iyo go'aamada ka soo baxaya ereyadiisa waxa kamid ah ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo midowga Afrika ka socda iyo kuwa kale oo saaxiibtinimo ku yimid ayaa waxa ay joogan Soomaaliya sidoo kale diyaaradda Ethiopian Airlines joogta ayay u timaadaa Muqdisho si la mid ah sidaas oo kale safaaradii Soomaaliya iyo Itoobiya way furan tahay welina xiriirkii looma jarin waxyaabaha kale ee jira waxa kamid ah in Soomaaliya meelo badan oo kamid ah Itoobiya ay ku leedahay qunsuliyado saaxiib ay ku leedahay shaqaale ay ka joogan arrintan iyo arrimo kale oo fara badan oo jiro oo Soomaaliya ka dhex jira ayaa waxa ay ka dhigan tahay baa leeyahay in dawladdu waxa ay afka ka sheegayso iyo waxa markaas ficil ahaan u muuqda ay yihiin kaaf iyo kala dheeri una baahan in la iswaafajiyo sababtuna waxay tahay meel diyaaradaheed dawlad diyaaradeed imaanayaan ciidamadeedii joogan Soomaaliya sidoo kalena tilaabooyin safaarad kule sideeha ayaa loo oran karaa waa cadow iyo waa ku duulayna iyo waa ku dagaalamayna iyo arrimo kale oo fara badan marka waxyaabahaas oo dhan waxa ay hadalka Xasan Sheekh Maxamuud ku yihiin daawac taas marka laga yimaado Itoobiya ayadu horay ayay u cadaysay mowqifkooda oo waxay sheegtay in caalamka waxa ka imaanayo oo dhan iyo Soomaaliyaba aysan dhajal u siinin mustaqbalka siday uga aamusan tahayna ay caadi iska noqon doonto oo la arki doono jiilasha dambe Itoobiyaanka oo bad ay leeyihiin ku dabaalanaya dekadna ku leh saldhig military ku leh si la mid ah dalalka kale ee adduunkana Itoobiya ay bad yeelan doonto waana bad Soomaaliyeed sida hadalkeeda ka muuqata maadaama heshiis halkaasi ka muuqda ay tahay laakiin arinta taagan waxay tahay in erayadan ka soo yeeraya Itoobiya aysan Soomaaliland dhaawac aysan ku ahayn oo Soomaaliland ay u aragto waxaan Itoobiya ay ku sheegaysaa inay bad ku qaadan doonto sida cadna u sheegaysaa in baddaas ay qaadan doonto in markaasi madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisu ay caadi la tahay laakiin dadka khubarada ay arinta ka faaloonay wax leeyahay mustaqbalka haddii ay aqoon sheesho Soomaaliland maca waxay noqon doontaa ereyga ficilka ay maanta samaysay mid ay ka shalaay doonto oo ay Itoobiya oo ka awood ka dad badan ay markaas imaan doonto dadka Soomaaliyeed baaqida imaanta iyo diidmadoodana ay Soomaaliland ay iyaduna ka aamusan tahay ama ay u aragtaba in horumarkeeda laga xun yahayna ay markaas qeyladaan u dirsan doonto dawladda Itoobiya wuxuu sheegay in saraakiil ka socota ay xuduudaha Soomaaliya yimaadeen madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta sheegay oo ay dadka la kulmayaan oo wax baarayaan marka wuxuu sheegay in aan arintaasi suurtagal ahayn mar walbana wuxuu soo qaadanaya dagaalkii dawladda Siyaad Barre iyo dhexmaray Team Mengista Haile Mariam ee dergida Itoobiya soo hogaamin jirtay xilligaasi isagoona ku tilmaamayay in ay dabcan waaga Soomaaliya guuleysatay waxa kale oo tusaale u soo qaatay hadaladiisana ka mid ahaa Itoobiya hadii duulaan lagu qaadaya inaga ayaa qaadayno oo uu la jeedo
dhul iyo dad ayay naga haysaa laakiin Ethiopia maahan in ay soo duusho iyadoo dhul iyo dad Soomaaliyeed oo aad u fara badan haysata oo gacanta ku dhigtay oo maamushay wuxuu sheegay in 60kii sano wixii ka dambeeyay sanadkii 1960kii markii Soomaaliya gobonimada qaadatay Ethiopia iyo cadow kala toona buu yiri wax dhul ah Soomaaliya kama qaadan oo uu la jeedo in wixii hore oo la baxshay ay dawladda Soomaaliya aan jirin uu gumaysta kala qaybiyay ka awood badan oo kii reer Yurub ahaa laakiin intii Soomaaliya xorriyadda ay qaadatay wuxuu sheegay inaan dhul iyo meel toonan aan laga qaadan lagana qaadan doonin intuu qof Soomaaliya uu nool yahay dad badan waxaysan xasuusnayn khudbad uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga dhaawac ku ah marka meel kale loo eego taasina waxay tahay in 10 sano ka hor markuu madaxweynaha ahaa uu tagay Jigjiga magaalada Jigjiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo Jigjiga ka taga halka Xamse Cabdi Barre uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii Soomaali ah oo markaas qarankii Soomaaliya matalaya oo Jigjiga taga labadaas mas'uulba dad badan oo ka falcelinayay hadallada Xasan Sheekh Maxamuud maalmihi la soo dhaafay waxay leeyihiin dhaawac ay ku tahay in asaguna uu Jigjiga ka sheegay علشان إنه تجيجة واحد كده جان تاي إن أقرأ إن إثيوبيا لا ده قبل كصومالي ده هل كم ده كله صومالي ده أي مرة والبا أي كحشون شرين أما أي ديد شرين إن تجيجة تجان حسن إنه تجاوح وكدر إن تجيجة أي تهدول إثيوبيا حل جاسي ولا السعودي مركزي ما صلاة وحل بانها الفدرال حل جاسها لكن هاتنا تليها النساء ما تليها عيدا كسردون كقرن كصوماليا النساء اللي هذا waxaana xilligaasi dad badan oo Soomaaliyeed ay ka caroodeen in Xasan oo madaxweynihii qaranka ee Soomaaliya intuu Jigjiga tago uu halkaasi ka sheego in Jigjiga ay tahay magaalo Ethiopia sidoo kale Xamse intuu tago uu halkaasi kula kulmo saraakiil iyo xilal mas'uuliyiin sarsare oo Ethiopiana oo Jigjiga kula kulmo isna uu ka sheego in Jigjiga ay tahay Ethiopia labadaas mas'uul ayaa waxa ay taariikh ahaan xusan in ay yihiin labada mas'uul ee Soomaali ugu sareysay ama ra'iisul wasaare ama madaxweynaha ee tagay magaalada Jigjiga ama kililka Soomaalida ayagoo oo nidaam Ethiopiana ku soo galay Ethiopiankina la socda haddana mar walba sheegaya in Ethiopia tageen halka ka sheegayay marka taas ayaa waxa loo arkaa mid dhaawac ku ah maantay waxa ay wadaan oo ah in dadka Soomaaliyeed cadow uga dhigaan Ethiopia iyo sidoo kale in ay dadka Soomaaliyeed ka dhaadhiciyaan in ay u baahan tahay inay istifaacaan oo ay iska difaacaan waxay ugu yeerayaan cadow arrinta heshiiska ee badda khilaafkeedu aad u kacsan yahay madaxweynaha Djibouti wuxuu ku baaqay kulan degdeg oo dalalka urur goboleedka IGAD la yiraahdo oo Djibouti ay markaan hogaamiso ay ku kulmayaan si xaaladda xiisadeeda loo damiyo caalamkuna wuxuu ku baaqayaa in Soomaaliya madax banaanideeda loo baahan yahay in la ilaaliyo oo dalalkaas waxa kamid ah kuwa waaweyn oo caalamka awood ku haysto oo ma ka mid yihiin Mareykanka iyo wadanka la yiraahdo Shiinaha iyo Ingiriiska iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo dalalkaas oo dhan ayaa iyaguna waxay isku waafaqsan yihiin ama ay mar horeba Ethiopia ugu baaqeen inay ka waantoodo waxay wado halka urur galada IGAD iyo midowga Afrika iyo ururkan jaamacadda Carabta iyo kan midowga Yurubna ay mar walba Soomaaliya ay leeyihiin waxaan aqoonsanahay xuduudaheedii 60kii Ethiopia ay leeyihiin waxyaabaha xiriirka caalamiga iyo shuruucda caalamiga iyo tan ururadaba kuma jirtaa ka waantoodo intaasaan ku soo gabagabaynayaa qorfaynta yar oo aan ismaha Ethiopia aan kaga hadlaynay waa kuma santiin daawashadiina mar walba waxaan halkaan kula wadaagi doonaa sheekooyin iyo warbixino ku saabsan arinta heshiiskaasi badda iyo khilaafkii uu abuuray iyo xaalka labada wadan wixii soo kordha ee dhinaca Ethiopia ka soo dhaca iyo dhinaca Soomaaliya wixii ka soo dhacay news ama warar ah waa si joogto ah baan kula wadaagaynaa kuma hadsanidin daawashadiina